إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. iska ilaaliso wixii soonkaaga waxyeelaya oo laba qaybood ah qaybi soonka way jabisaayo markay aad la timaado soonkaaga dhan waa u dhamaanaysaa maalin kale inaad soo celiso soo qalaysaana laazim kugu noqon doonto qaybta labaadina waa qaybaan soonka jabinaynin laakiin ajirkiisa baabi'inaya oo waxba ka soo reebayn qaybta hore ee soonka jabinaysay waa arrimo kooban oo loo baahan yahay inaynu ku baraarugno in badanna aan rajaynayo inaynu garanayno waxa kow ka ah cunitaanka iyo cabitaanka quraanka kariimka ah iyo ahadiista nabiga inoo sheegtay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waana lisla ogoliyo hadal badani kuma jiro qodobka labaadi wax weeyaan soonka jabiya waa waxaan cunitaan ahayn cabitaanna ahayn laakiin macnihii cunitaanka iyo cabitaanka ayuu leeyahay oo jidka wuxuu siinayaa wixii cunto uu ka helayay ama cabitaanka uu ka helayay taasina waxa weeyaan waa maadooyinka glucose ama biyaba ama wuxuun mawaada muqadiyada jidka dheefisa ee xididada laga qaadanayo waa faleebada xididada la iska siinayo ruuxa laga siinayo ayadana soonka waa jabinaysa maxaa yeelay cuntadii baa lagaga kaaftoomi karaa ilaa waqti xoogii iyo dheeftii cuntadii cabitaanku bixinayeen jidka way siinaysaa waxa looga qiyaas qaadanaya cunidii cabitaankii iyaduna soonka waa jabinaysa say culimada maanta joogta badankood qabaan arinta saddexaad ee soonka jabisay in la iska ilaaliyo u baahan wax weyn inaad iska mantajiso mantagu waa laba inuu isagu ka yimaado ku soo dhaafo ha ceshanin ha ka soo baxee soonkaaga waxba yeeli maayo iyo inaad adigu soo saarto aad sabab adigu aad leedahay ku soo saarto kaasi soonkaaga waa jabinaya nabigeena wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam cidii soonku soo dhaafo ka qaalib noqdo qallal laga marrabe soonkiisa waa wadanaya ruuxiisa iska matajiyo buu nabiga sallallahu alayhi wasallam kaasi ha qalleeyo soonkii waa ka jabay macnaheedu wax weeyaan marka inaadan iska mantajino mantaga aad iska ilaaliso waxa la mid ah oo qodobka xige ee soonka jabiye in la iska ilaaliyo u baahani uu yahay waa galmada ragga iyo dumarka dhexmara quraanka kariimkaana Allah waa ku tilmaamay xadiidkii Abu Hurayra fi sahihayn nabigu waa ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam cidii galma ay ka dhacday waliba soon jabay kaliya meehe kafaara culus baa ku laazimaysa inuu adoon xoreeyo hadduu kari waayo inuu 2 bilood oo isku xigta soomo ramadaan kadib hadduu kari waayo inuu 60 miskiin quudiyo oo miskiinkiiba nisu saac u siiyo hawl culus waay sidaas daraadeed waxa waajiba inaad iyadana iska ilaaliso waxay culimada badankood qabaan oo jamaahiirtoodu salafan oo khalafan ay qabaan ayadana soonka inuu jabinayo biyaha manida iyo shahwada oo la soo saaro ruuxu isaga qasad uu leeyahay ku soo saaro ama gacantiisa ha ku soo saaro ama wax kale ha isticmaalo biyaha hadduu iska soo saaro shahwada sabab uu leeyahayna ku soo saaro ayadana soonka inay jabinaysay culimada badankood qabaan iyo jamaahiirtoodu waxayna u daliishadaan qaar kamid ah xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam rabbi markuu yiri soonka ana iskale anigana abaal gudkiisa bixinaya wuxuu ka dambeysiyay adoonkaasi wuxuu ka tagay cuntadii iyo shahwadii buu aniga dartay uga tagay marka biyuhu gacan la isaga keeno ama sabab lagu keenay sabab kale lagu keenay shahwadaadii oo aadan ka tagin waay sidaas ay culimada qaar kood u daliishanayaan wabitaali soonkii waa jabinaya siday badankood qabaan waxyaalaha sidoo kale to soonka jabinaya waxa kamida oo isagu maqaadiir rabbi dumarkana khaaska ku ah dhiiga caadada ah iyo dhiiga dhalmada sida ahadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo kale tibaaxday waxyaalahaasi waa waxyaalaha soonka jabiya in badan oo dadku ay u haystaan soonka inay jabiyaan waxyaalo badan oo kale ta soonka wax ma yeelaan laakiin inaha daliilka loo hayo inahaas way soonka jabin karay intaasi marka waa intii soonka baabi'inaysa oo la iska ilaalinayo waxa kale iska ilaalinaysa wax kasta oo ilaahay xarimay oo carabkaaga
ishaada dhagtaada gacantaada lugtaada wax kasta oo xaaraan oo ilaahay xarimay oo samayso adoo sooman soonkaagu waxyeelaya sidaas daraadeed nabigeenu salawaatu rabbi wasalaam calayhi wuxuu yidhi ruuxii aan ka tegin hadalka xun iyo dhaqanka xun ilaahay tabaaraka wa tacaala wax dan ah kama leh inuu cuntadiisa iyo cabitaankiisa ka tago inuu gaajoodo oomo ilaahay wax dana kama leh ajirna ka heli maayo xadiid kaluu nabigeenu ku leeyahay sallallahu alayhi wasallam soonku ma aha inaad cuntadii iyo cabitaanka iska dayso intaasi soon ma aha laakiin soonka dhabtii waxa weeye inaad afxumada iyo dhaqan xumada iska dayso ilaa nabigeenu yidhaahdo salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadduu ruux ku caayo kula caytamo ama dhaqan xumo kugula kaco hala ficiltamin hala caytamin ha ka ficil la qaadanin laakiin waxaad tidhahdaa war waan soomanahay waa kula dagaalamay waa ku caayay waa kugu xadgudbay war waan xakamaysnahay waa iska kaa celin karaa laakiin waan xakamaysnahay xagga rabbi baa layga xakamay waan soomanahay soonkaaga ilaasho يعني وحوي هداد إلى شويده وحكوكو دعيس حديث النبي سيدو تلمامي صلوات ربي والسلام عليه رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش وحابدا ضد بدن الصوم باكرة لكن صوم كودا نفت أي كهل يعني كريه أي تهي إنه أميهي أو قاتشيسينها بس وحكلا أو كهل يمشر وادبات أوضي صوم كالصحراء inta soo ajiro la tilmaamaya laga guranayo adduuniya aakhiraba allana jeceliye janno lagu heliyo iyo rida rabbi tabaaraka wa taala wa soonka adigoo dhan ku wada xakameey ee adigoo dhan ku wada celinaya way xubnahaaga dhan wada qabtay ku kontroolaya ku celinaya laakiin ma aha mid intii xalaasha ku ahayd soonka ka hor intaad daysay intii xaaraanta ahaydna aad iska qasanayso waa qariib soon intuusan soo gelin xantu xaaraan bay ahayd beentuna xaaraan bay ahayd xadgudkuna xaaraan buu ahaa fiirada khaladkaana xaaraan bay ahayd intii soon ka hor xaaraan ahayd soon markuu soo galay xaaraannimadeedu waa sii cuslaatay in xalaal inoo ahayd soonka ka hor baa laynaga xarimay intii xaaraanta sii ahayd warkeeda iska badaa sidaas daraaddeed waad sooman tahay macnaheedu adigoo dhan baa wada sooman calooshaada xubinkaaga taranka indhahaaga dhagahaaga gacmahaaga lugahaaga qalbigaaga kulligaa wada soomanta haddaad sidaa yeeli weydo soo maaha tacab khasaar baad markaa isu diyaarinaysaa waad daashay waadna rafaaday laakiin wax tacab ah kuuma yaallo ajirna ilaahay agtiisa ka sugi maysid إلهي تبارك وتعالى وحن ويدسننا إنه صونكين عبادات كن يعماشنا إنت والله إنه أقبل تبارك وتعالى صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما